maanta waxay farxada challenge-keennii inaynu bilaabayno maalinkii 8aad si kala hadii loo eegana waa toddobaadkii labaad waa maalinkii ugu horeeyay cashir aad u muhiim ah ayuu maanta ku bilaabmaya waxaana uu qoraagu kugula talinayaa inaad isticmaasho sharciga loo yaqaano saddexda shay sharcigani qisa ku bilaabmaya waxa jirtay gabadh u timiday oo ka soo qayb gashay tababar kamid ah tababaradu qabanayay gabadhaas markaa waxay ka caawinaysay in hawlaha u yaala iyo waqtiga ay haysatay ay aad iyo aad u kala badan yihiin ayna ku guul daraysatay mar walba inay hesho waqti ay family-geedii iyo qoyskeedii iyo carruurteedii ay la qaadato marka tababar oo qoraaga buuggeenu qoray ayay ka qayb qaadatay wuxuu u ballan qaaday markaa maalinkii ugu horeysay inay 9 maalmood gudahood ay isku bedeli doonto 9 maalmood haddii ay talooyinka soo socda ay qaadatana ay hawlaheega oo dhan ay dhammaystiri doonto shaqooyinka waqtiga inta usoo harina uu noqon doono mid spare oo ay ka faa'iideysato marka challenge-ka 9 maalmooda wuxuu ka bilaabay wuxuu weydiiyey 9 maalmood ee soo socda maxaad is leedahay hawlo way ku yaalaan oo way kugu muhiimsan yihiin way fikirtay waxay soo qoratay warqad ay ku qoran tahay 17 hawlood u fiirso mar walba maaha waxa laga fikirayay maaha maskaxda waxa weeyaan waa inaad warqad ku dul fikirto laguma hayn karo qorshe marka la sameynayo maskaxda laguma hayn karo 17 hawlood markay u keentay waxa ku hadaba waxaad ka fikirtaa hawsha ugu weyn ama kuugu muhiimsan waatay maskaxdii bay calaalisay mid bay ka soo saartay haddana wuxuu ku yiri haddaan kugu celin laan ku oran lahaa mid labaad ku soo dar maxaad ku soo dari lahayd mid kale ku soo dar haddana wuxuu ku yiri haddaan ku oran lahaa mid saddexaad ku soo dar way ka fikirtay mid saddexaad bay ku soo dartay wuxuu ku yiri dhageysa hadaba 17 hawlood ee ku yaalay doonaysa inaad qabato saddexda hawlood oo kaliya ta kala soo had waxa kale oo dhan gebigo gabadhaadi ilaa aad saddexda hawlood aad soo dhammaystiranayso gabadhii aad iyo aad bay yaab ula noqotay booskeegii shaqada ku noqotay qisada buugaad ayaad ka akhrin doontaan isagii markii loo geeyay isagii laftiisa yaab ku noqday wuxuu saddexda shaqay waa saddexdii ugu muhiimsanaa la doonayay company-ga inaad u qabato wixii kale oo dhan dad kale loo diray iyadii markaa waxay soo noqotay 9 maalmood iyadoo faraxsan waqtigeegiina in badan oo kamid ah ay muxuu ahaayay family-geegii iyo carruurteedii markii hore ka caawinaysay la qaadata shaqooyinkii u yaalay ugu muhiimsanaana soo dhammaysay marka concept-ka halka laga qaatay waxa weeyaan in inta ugu badan waxa nafteena dadka been bay u sheegtaa wuxuu qofku u isku haystaa inay u yaalaan boqolaal hawlood kala duwan waa run qof walba waqtigu haysto horta mid waa inaad ogaato waqtigaad haysato iyo hawsha ku taalay mar walba way kala badan yihiin mar walba hawsha badan laakiin maxaa la doonayaa inaad isticmaasho xeerkan saddexda marka qoraagu wuxuu yiri qof kasto ii yimaada imtixaan yar oo degdegan ka qaada imtixaanka adigeen daawanayna waxaan jecelahay inaad isku daydo inaad imtixaankaas oo kala iska qaado waxaad soo qaadanaysaa warqad iyo qalin kadibna 30 ilbiriqsi oo kaliyaata oo 30 second ayaa waxaad qoraysaa saddexda hadaf ee noloshaada kugu muhiimsan saacadana qabso only 30 second marka wuxuu yiri marka qofku 30 second oo kaliya talaada waqtiga celiili buu ku noqonayaa waxa soo baxaysa marka wixii ugu muhiimsanaa noloshiisa in qofku soo saaro marka muxuu qoraagu kula talinayaa mar hadduu uu la soo baxay wixii ugu muhiimsanaa noloshiisa hadda kadib saddexda hadaf umad awoodda saaraysa inta ugu badan wuxuu yiri dadka 80% iyo ka badan ahdaaftoodu waa saddexun waa hadaf dhaqaale ay qofku leeyahay iyo hadaf caafimaad iyo hadaf qoys ama family saddexda hadaf wuxuu 80% dadku ma dhaafaan intaas ugu waaweyn marka daba si aynu sharciga saddexda aynu u tadbiiqino ama aynu practical aynu ku qaadano waxaan jecelahay qof walba muuqaalkan daawanayay inuu soo qaato warqad iyo qalin kadibna su'aalaha soo socda ka jawaabi doontaa muuqaalka halka ku joojiso warqad iyo qalin soo qaado kadibna aynu bilowno waxaan filayaa diyaar baa tahay waynu bilaabi kareena waxaan ku weydiin doonaa 6 su'aalood 6 su'aalood su'aal walba waxaad haysataa 30 second ama waxaad haysataa 30 ilbiriqsi number 1 su'aasha koobaad waxa aad qoraysaa saddexda hadaf ee kugu muhiimsan business-kaaga ama ganacsigaaga طبعا waa hadii aad muxuu hayaad ganacsada tahay su'aasha labaad waxaad qortaa saddexda hadaf ee kugu muhiimsan xagga dhaqaalaha inaad xaqiijiso 30 second waad haysataa su'aasha saddexaad
waxaad qortaa saddexda hadaf ee kuugu muhiimsan xagga familiga ama qoyska 30 second waa haystaa 30 second su'aasha afraad waxaad qoraysaa saddexda hadaf ee kuugu muhiimsan caafimaadka marka la yiraahdo dad badan baan fahansanayn wax laga wadaa miisaanka cuntada jimicsiga waxaas oo dhan weeyaan su'aasha shanaad waxaad qoraysaa saddexda hadaf ee kuugu muhiimsan horumarinta nafta waana 30 second su'aasha ugu dambaysa waxaad ku soo gabagabaynaysaa qortaa saddexda dhibaato ee ugu waaweyn ee maanta ku haysta ugu dambeyntii haddii lixda qaybood mid walba aad soo qorto saddexda hadaf ee kuugu muhiimsan awoodana aad saarto qorshana aad u samayso insha Allah ta'ala waxa aad horumar ballaaran aad ku samayn doontaa muddo gaaban waxaan rajaynayaa in imtixaankaas iyo sharciga saddexduba oo idin anfaco waa mid kamid ah sharciyada ugu wanaagsan ama ugu muhiimsan ee buuggeena ku jira maanta waa maalintii koobaad toddobaadkii labaad insha Allah maalinka labaad waa berito wale aad ba u mahadsantiin muuqaalka sii faafiyo si uu gaaro dad badan ayna uga faa'iideystaan